360 orodyahan oo 30 kamid ah ajaanib yihiin kana kala socday 6 gobol ee Somaliland iyo qaar kamid ah wadamada caalamka ayaa saaka 6 iyo barkii subaxnimo si rasmi ah uga qayb galay tartanka orodka ee Dahabshiil Somaliland Marathon iyagoo ku dhawaad 70 kamid ah tartamayaashana ay ahaayeen dumar. tartankani oo ka furmay garoonka Hargaysa Stadium ee magaalada Hargaysa ayaa sanad kasta si xiriir ah waxa uu soo qaban qaabisay una maalgelisay shirkadda Dahabshiil Group oo kaashanaysa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland iyadoo orodyahanadu ay ku kala tartamayeen tartanka orodka ee 10 kiiloomitir iyo 42 kiiloomitir. صعب بدن هالوقتو صعب بدن هالوقتو برتوا قرون بوعدي عيارها بربارتي لصوحوي ترتان لوغو باقي بوشيا خير ليدوما يا صعب بدن هالوقتو صعب بدن هالوقتو هو بري الله لما بشا iyadoo orodyahanadii kaalmaha ugu horeeya ka galay tartanka 10 kiiloomitir iyo 42 kiiloomitir ay shirkadda Dahabshiil Group ay guddoonsisay qadar lacageed ugu horeyn madaxa suuqgeynta ee shirkadda Dahabshiil Motors oo ku hadlaysay afka shirkadda Dahabshiil Group oo munaasabada ka hadlasay ayaa sheegtay in Dahabshiil Group mar walba door muhiim ah siin doonto arrimaha dhalinyarada iyo ciyaaraha markastana ay ka go'an tahay anagu waxaan nahay Dahabshiil Group waxaan sababta u maalgelinay waxa weeyaan in ay dhalinyaradu soo noqdo in tartankii dib loogu soo noqdo oo la barto tartanku yahay waxaan nahay dad tartanka ka qaybgeli jiray jirkooda u dhisan yahay tartanka waxaan jeclaanahay in adduunyada tartamada adduunyada lagu arko Somaliland hawla iyo markay doonayaan baahadana ka qaybgelaya oo ordaya oo badanaya insha Allah sababaha Dahabshiil Group ahaan oo dhiirigelina dhalinyarada waxa weeyaan in dhalinyarada tayo leh oo dhalinyarada adduunka la tartami karta ay noqdaan أنا Dahabshiil Group أو شركة هي بس كده حجرة Dahabshiil Bank حوالتي أو يدنا شوكتا قالوا أنا جاك سعودة هينداي Dahabshiil Motors Somtel أو Life كأنه صورة جالسة زي ما أنت كيف يجوا إحنا سكون من سيدا صورة جالسة ترتنكني مركا حنا دلنا ودنا سنتي ترتنك واحد كسوق جالسة تبغى يوم نحن نقف مسؤولين كترسل حكومة الصوماليلاند oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa shirkadda Dahabshiil ugu mahad celiyay doorka ay markasta shirkaddu ka ciyaarto arrimaha bulshada gaar ahaan dhaligelinta ciyaaraha iyo dhalinyarada munaasabada qiimaha badan oo tartanka orodada 42 kiiloomitir iyo 10 kiiloomitir ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu mahad gaar ah bay leeyihiin agaasimaha guudi oo goobta lagu sugan oo heer ugu jira inay fuliyaan siyaasad dhiirigelinta dhalinyarada oo ay wakiil uga yihiin madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland أكيد مهندسين أنا فرصة بركة الله يجبرنا سياقي أقول هذا كل مهندسين يا بنير تصوريان إلى رجعتان تاريخين وتلو بعدا إنتو واحد يسير إنتو واحد يتفق أما حتى الجوال ولا حتى الجوال بينهم الجوال ترتكن أورديهالنا ترتكن أورديهالنا دمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحسيقارو السلام يا كان كلاياشا ترتكن السلوك سلا ترتميال عارف في النوغيمي يترتميال Somaliland كان ترسل وحسيقارو السلام يا أبلغه وقيد ويكا قاطين مان ترتكن ولما ترتكي خلق القرم بالفكر أيام محمد قراداي كلامها نور يتكلم على تروح قرى الموجودة يسار واحد كليه الموجودة يسار وحويه إن Somaliland أي سورة كليه يسوع إن أي كذا عضو ترتن عيار
ciyaareen orod oo caalamka oo dhan la iskaga yimi taasna waxa markhaati furayo suura gelinayo sahlaya inay Somaliland ka jirta nabadgelyo ugu dambeynna waxaa halkaasi si rasmi ah lagaga dhawaaqay liiska guulaystayaasha orodka 10 kiiloomitir iyo 42 kiiloomitir iyadoo mas'uuliyiinta shirkadda Dahabshiil Group iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo ciyaaruhu ay si rasmi ah u guddoonsiiyeen orodyahanada kaalmaha hore ka galay qadar lacageed oo shirkadda Dahabshiil ay ugu tala gashay